gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamed Cumar Filish ayaa maantay dhagax dhigay mashruuca dhismaha casriga ah ee xaafada Marina Beach State ee degmada Kaaraan. Munaasabada dhagax dhiga mashruuca ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya mudane Cali Maxamed Geedi, odayaasha dhaqanka, ganacsato, bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas'uuliyiin kale oo lagu casuumay goobta. Gudoomiyaha xaafada Cusub ee Marina Beach, Liina Xasan Maxamed oo la hadashay warbaahinta ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay mashruucan, waxayna sheegtay in uu yahay mashruuc si casri ah loogu dhisayo deegaan ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Waxayna sheegtay inuu qayb ka yahay horumarka caasimadda isla markaana ay ku dhiiradeen in ay mashruucan fuliyaan. ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya mudane Cali Maxamed Geedi oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu dhiirigeliyay ganacsatadii Soomaaliyeed ee maalgashigan ballaaran sameeyay. sidoo kale dhammaan mas'uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa waxa ay aad u soo dhaweeyeen fulinta mashruucan iyagoo bogaadiyay ganacsatadii ku dhiiratay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamed Cumar Filish oo ka hadlay munaasabada dhagax dhiga ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay kheyraad kala duwan. waxa uuna sheegay in xilligan loo baahan yahay in laga faa'iideysto, isagoo bogaadiyay in ganacsatada Soomaaliyeed ay xilligan ku tartamayaan wanaagga iyo horumarka. talaabtan marka waa talaab yadidiilo leh aad iyo aad oo qalbi wanaag u ah aan soo dhaweynayno ganacsatada Soomaaliyeed ee uu gudoomiyaha u yahay Maxamed Cabdikariin Gabayre iyo Ismaaciil iyo state-kan gabadha madaxdu ah Liin dhammaan inta gacan ka geysatay waa uga mahad celinayaa. waa bilow wanaagsan. Soomaalidu wax u bilaabaday rabaan mar haddii loo bilaabo ku soconayaan waxaan soo aragnay waa xumaan haddii loo bilaabo xumaantay wadaaya, wanaag haddii loo bilaabo midkaan oo kale waa wadaaya. shaqo igama jirtaasoo intaan soo joogaan soo arkay. marka wanaagga in lagu tartamo insha Allah taala ayaan rajaynayaa kanuna oo noqdo wanaag bilowday ee lagu tartamo. goobta mashruucan laga fulinayo ayaa ah dhul ku yaala xeebta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ku badanayay horumarka ay sameynayaan bulshada Soomaaliyeed kaasi oo ay ku tartamayaan dhanka horumarka.